السلام عليكم. دورنا وناكسن محكمة دوائنو فرنتهي فريست. inta aanan guda gelin ku dhawaaqitaanka waxaan baraarujinaynaa arrimaha soo socda ugu horeyn marka ay ku dhawaaqistu dhamaato howlwadeenada ka socdo warbaahinta waxaa la ogeysiinayaa in howlka dhexdiisa waxba lagu duubi karin barxadda maxkamadan aan lagu duubi karin qof inay wareysata rabto oo waxayna duubata rabto bannaankaasi la tegaysaa midda labaad dadka ku sugan howlka dacwadda ee u yimiday in ay qayb ka noqdaan ama dhageystaan ku dhawaaqista maxkamadda maanta ay sameynayso ee xukunka laga soo saaray galka sumadiisu tahay 27/24 waxay maxkamaddu ku baraarujinaysaa in wax falcelin ah in ay sameeyaan ayna maxkamaddu ogoleyn ciddii markii maxkamaddu xukunka ku dhawaaqda la falgasha ee falcelinka samaysa buuq iyo waxyaabo aanan u qalmin maqaamka maxkamadda in maxkamaddu ay la tiigsanayso sharciga tilaabo sharciga waafaqsanna laga qaadayo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمهورية فدرالك صوماليا محكمة رفعانك قبل كبنادر قيبتا عقابتا واحدة تشيكا ما أنت أو أي تاريخ دو تهي شاني طبانكي بيش الشنات لبدو كون أفري لباتنكا محكمة وككوبان قرصورياشا كلاء عبد الوهاب أحمد علي برهان محمد علي يانيغو سعيد علي محمد سمركان القدومين هي محكمة كاليانا وكي هي لبان محمد محمود فردقان مانتا عنو فردينو محكمة وحاوي كل واقعي ساعة حكمك اي كسو سارتي قل دعوديتك نمبركيسو يهي 27/24 وحنا قوب جوغ فردقان حيرلاليها كومتليو دعودان حفيزك حيرلاليها قد هذا الميكروفون استعمال magacaygu waa Yaxya Maxamuud Saciid wax ku matalaya xafiiska xiraalaya guud qaranka dacwadan maanta ma fadhiyo maxkamadda maasanta waxa isna goob joog eedeysan Sayid Ali Macalin Daawud eedeysanaha waxaa iyana goob joog oo qaran waa eedeysanaha abukaate cali xalanay ka fadhiiso maxkamaddu markii ay dhageysatay asbaabta rafcaanka ee eedeysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyay dacwadoogaha ku matalayay dacwadan xafiiska xiraalyaha guud si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta maxkamaddu haddii ay dib ugu noqotay qoraaladii ay soo gudbiyeen iyo doodii ay soo jeediyeen labada dhinac aragtayna dhammaan dukumentiyada ku jira galalka maxkamadda gobolka iyo rafcaanka darastayna cadeymaha dhinacyada waxa uu caddaatay sida soo socota in si loo caddeeyo eedeysanuhu inuu galay falka ku xusan qodobka 434 ee xeerka ciqaabta ay qasab tahay in la sugo si aanu ku jirin shaki maangal tiirarka uu ku taagan yahay qodobka oo sidan soo socota in eedeysanuhu geystay fal 2 inay jirto dhimasho 3 in falka eedeysanuhu geystay uu sababay dhimashada dhibanaha 4 in eedeysanuhu uu qasday dhimashada dhibanaha inaanay wax dooda ka taagnayn in eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud 26 bishii koobaad 2024 sameeyay fal gubista qol kamid guri uu deganaa kuna yaalay degmada Dharkeenley isagoo ku sheegay qiraal uu maxkamadda gobolka ka hor sameeyay 25 bishii labaad 2024 inuu isagu gubay guriga in xafiiska xiraalyaha guud uu maxkamadda u soo bandhigay muuqaal laga dheehday qol kamid guriga falku ka dhacay oo gubtay taas oo cadeyn u falka gubashada qol kamid guriga isla markaana uu waafaqsan yahay qiraalka uu sameeyay eedeysano inaanay doodi ka taagnayn in Luul Cabdicaziis Allah naxariistay ahayd qof nool oo degan magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dharkeenley una dhexday eedeysana Sayid Cali iyo aabaha dhalay
marxuumadana ay isla ogol yihiin in luul ahayd qof nool ka hor dhacdada keentay geerideeda, taas oo si dhab ah inoogu xaqiijinaysa in marxuumaddu ahayd qof nool ka hor dhacdada dhimashada keentay. in warqad ku taariikhaysan 2 bishii 2 2024 kana soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada Muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex Digfaar lagu cadeeyay in luul geeriyootay 2 bishii 2 2024 abbaaro 6:50 daqiiqo ee subaxnimo kuna geeriyootay isbitaalka tababarka iyo cilmi baarista ee Muqdisho. in waraysi ay maxkamaddu la yeelatay dhaqaatiir ta u fidisay gargaarka caafimaad luul Allah u naxariistee oo gacanta ku hayay kiiskeeda ay maxkamadda la wadaageen in luul isbitaalka la keenay taariikhdu markay ahayd 27 bishii 1 2024 abbaaro 1 subaxnimo ama 7 saac oo habeenimo iyada oo guban. in warbixin tirsigeedu yahay 41 kuna taariikhaysan 28 bishii 1 2024 kana soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada Muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex Digfaar lagu cadeeyay in 90% luul jirkeedu gubtay, sababta gubashada keentana ay tahay flame gas. in warbixin mid ka mid ah dhaqaatiirta maxkamaddu wareysatay uu sheegay in 90% luul jirkeedu gubtay, gubashaduna gaartay lakabka saddexaad ee maqaarka hypodermis, isaga oo xusay in 10% badbaaday ay tahay labadooda lugood qaybtooda hoose oo midiiba 4% la xisaabiyo, kilkisha midig iyo awrada oo midkiiba 1% la xisaabiyo. in warqadda shahaadada dhimashada ee ka soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada Muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex Digfaar lagu cadeeyay in luul Cabdilcasiis Maxamed geeriyootay 2 bishii 2 2024 abbaaro 6:50 daqiiqo ee subaxnimo, sababta geerida keentana ay tahay dhaawac ka dhashay dab keenay gubniin halis ah. in waraysi ay maxkamaddu la yeelatay mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka Digfaar kuna takhasusay suuxinta iyo la tacaalida xaaladaha adag ahna mid ka mid ah dhaqaatiirtii gacanta ku hayay xaaladda luul maxkamadda la wadaagay in sababta keentay dhimashada luul ay tahay dab jirkeeda gaaray, isagoo raaciyay in marka la eego dabka jirkeeda gaaray rajada badbaadadu ay ahayd mid ka yar 10%. in arrimaha soo xusnay ay si cad u muujinayaan in sababta dhimashada luul ay tahay dabka eedeysanuhu ku qabtay guriga ay ku noolayd. in eedeysanuhu qirsan yahay in isaga iyo luul muran dhex maray, kadibna ay tiri waxaan guursanayaa nin kale ee fur, isaguna go'aansaday inuu gubo alaabtiisa. xilliga arrimahani dhacayaan ay ahayd habeen, dabeetana baxay soona iibsaday shidaal ku shubay qol ka mid ah guriga ay ku wada noolaayeen isaga iyo luul, kadibna jantisiigar ku shiday balse uu diiday in falka gubashada luul uu ku yimid si kas ah, isaga oo xusay in iyadu gashay qolka gubtay kadibna uu badbaadiyay. in marka la eego muranka dhex maray eedeysanaha iyo luul xilliga muranku dhacay oo ah xilli habeen ah, eedeysanuhu inuu baxay soo iibsaday shidaal dabeetana ku shubay mid ka mid ah qolalka guriga ay ku wada noolaayeen kuna dhajiyay jantisiigar ay si aanu shaki ku jirin u muuqanayso in eedeysanuhu falka gubista ah ku fakaray, qorsheeyay, dabeetana baxay, tagay meel shidaal lagu iibiyo, soo iibsaday shidaal ku shubay qol ka mid ah meel dad ku nool yihiin kuna dhajiyay jantisiigar. in eedeysanaha falkaas marka uu sameynayay miirkiisu joogay, ogayna in dab haddii lagu shido guri dad ku nool yihiin iyada oo waliba la adeegsanayo shidaal oo caadi ahaan siyaadiya gubashada, natiijada ka dhalan kartaahi ay tahay in waxyeello gaari karto, dhimasho ay soo gaari karto dadka goobtaasi ku nool. in eedeysanuhu uu lahaa gaari ku jiray garaash ku dhow goobta falku ka dhacay sida uu sheegay, markii falku dhacayna uu ka baxsaday goobta isagoo adeegsaday gaarigiisa. haddii aanu falka si kas ah ugu geysan xaaskiisa si ku talagal ahna aanay u guban
caadi ahaan laga filan karay qof xaaskiisu gubtay falka caadi ahaan laga filan karay qof xaaskiisu gubtay waa inuu u fidiyo gargaar isla markaana gaarsiiyo goobta ugu dhow ay ka heli karto gargaar caafimaad. in eedeysanuhu aanu samaynin sidaas ee uu baxsaday isagoo adeegsaday gaarigiisa dabeetana aaday Galgaduud isagoo og in xaaskiisa dhaawac adag soo gaaray, caqliga saliimka ahna uu keenayay in gaariga uu ku baxsaday ku qaado gabadha gargaarna u fidiyo wax ku qasbayo baxsasho haddii aanu u geysan falka si ula kaca. in dooda eedeysanaha ee ah in Luul iyadu gashay qolka oo gubanaya ay beeninayso warbixintii uu mid ka mid ah dhaqaatiirtii Luul u fidiyay gargaarka caafimaad ee ku takhasusay qalliinka guud maxkamadda u sheegay Luul in aanay ka guban labada lugood qaybahooda hoose, sidaas la mid ahna sawir maxkamadda lala wadaagay uu taageerayay hadalka doctorka ee ah in Luul aanay ka guban lugaha, waxaana lugaheeda saarnaa maqaar iyada oo la arki karay cilaan u saarnay lugaheeda. in haddii Luul soo gashay qol gubanaya oo shidaal lagu shubay, meesha ugu horeysa ay ka guban lahayd noqon lahayd lugaha oo uu qabsan lahaa dabka holcayay oo ee ka dhashay shidaalka dhulka lagu shubay, taasoo meesha ka saaraysa dooda eedeysanaha ee ah in iyadu qolka gashay. in arrimahan oo dhan muujinayaan in eedeysanuhu si kasa u sameeyay falka ah gubidda guri. falkani ay ka dhalatay natiijada dhimashada Luul marka lagu sameeyo fal ah gubis qol ku yaalo guri lagu nool yahay. natiijada laga filan karo falkaasina ay tahay geerida qofka ku sugan qolka dabka lagu shiday si waafaqsan qodobka 24 xarafkiisa ee xeerka ciqaabta. in qaranada difaaca eedeysanaha ku doodeen in maxkamadda gobolka dhageysatay marqaatiyaal xafiiska xeeraryaha guud keenay kuna xustay bogga 18 ee xukunkeeda in marqaatiyaashii maxkamaddu hor yimid marag furkooda aanu ahayn mid lagu dhisi karo xukun maxkamadeed. in cadeymaha wax lagu sugo ee sharcigu jideeyay ay yihiin qiraal, marqaati iyo qaraa'in. maxkamadda gobolkana ay xukunkeeda u adeegsatay qiraalka eedeysanaha iyo qaraa'in ay kala soo dhex baxday dhacdada. in sida jamhuurka fuqahada muslimiintu qabaan qariinadu tahay daliil la cuskan karo, garsoorkuna uu axkaamtiisa ku dhisi karo, arrinkaasna ay sal u tahay kitaabka quraanka, sunnada nebiga iyo ijmaaca muslimiinta. in aayadda 18 ee suuratul Yuusuf oo Allah subhanahu wa ta'ala kaga waramayo in markii Nabi Yacquub alayhi salaam ee wiilashiisu u keeneen qamiiskii Nabi Yuusuf alayhi salaam oo dhiig been ah ay soo mariyeen, uu ugu jawaabay waxaad wadaan waa been oo naftiina ayaa idin qurxisay. iyadoo culimada tafsiirku ay sheegeen in habka Nabi Yacquub ku gartay in dhiigaasi uu been yahay ay tahay inuu arkay qamiiskii oo dhiig leh laakiin aan jexjexnayn, uuna yiri wiilashiisii goormaa waraabuhu caqli yeeshay oo wiilka kala baxay qamiiska isagoo aan dilaacinin. iyadoo culimadu arrinkaasi ka daliishadeen in qariinadii dhiigga ee wiilashu daliishadeen uu Nabi Yacquub alayhi salaam ku buriyay qariino kale oo ka xoog badan oo ah in aan qamiisku jeexnayn, taasoo daliil cad ah in qariinadu tahay xujo lana cuskan karo marka arrin laga go'aan gaarayo. in aayadaha 26 iyo 27 ee suuratu Yuusuf oo Allah subhanahu wa ta'ala uu kaga warramay qofkii ka marag furay markii la masabiday Nabi Yuusuf alayhi salaam uu sheegay in haddii qamiisku uu horay ka dilaacsan yahay uu isagu been sheegayo oo haweenaydu ay run sheegayso, haddiise uu gadaal ka dilaacsan yahay ee haweenaydu been sheegayso oo Nabi Yuusuf alayhi salaam uu run sheegayo, taasoo ka dhigan in lagu amray in boqorku uu fiiriyo qariinooyinka ka muuqda qamiiska ee kala cadeynaya in Nabi Yuusuf alayhi salaam uu haweenayda damcay ama in ay iyadu damacday. arrintaas oo jamhuurta fuqahada muslimiintu u daliishadeen in ay cadeynayso xujoonimada qariinada iyo inay tahay cadeyn la cuskan karo oo garsoorku go'aankiisa ku dhisi karo. in xadiiska uu wariyay Bukhari oo tirsigiisu yahay 3962 iyo Muslim oo tirsigiisu yahay 1800 nuxurkiisu ahaa in markii uu sheegtay
mid kastoo ka mid ah labadii wiil ee ilma Cafra inuu isagu dilay Abu Jahl. nabigu calayhi salaatu wasalaam weydiiyey seeftiinu miyaad masaxdeen inay ku jawaabeen maya ma aanan tirtirin. kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam uu seefahoodii fiiriyey uuna yiri kan baa dilay isagiina uu u xukumay furkii laga furtay Abu Jahl. arrinkaas fuqahada muslimiintu waxa ay u cuskadeen in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qariinada wax ku xukumay sidaas darteedna ay garsooraha u bannaan tahay inuu ku go'aan gaaro qariinada hortiisa taalla xukunkiisana uu ku dhiso. in xadiis ay soo saareen Abu Daawud oo tirsigiisu yahay 4404, Al-Tirmidhi oo tirsigiisu yahay 1584, Ibn Majah oo tirsigiisu yahay 2541, النسائي أو ترسيجيسو هاي يكون بقول كنت يلح ولما بدنا أي صحيحين أو صحابيك سعد بن معاذ نبي عليه الصلاة والسلام أو جوب جوج كوجو آمية إن غير بنو قريدة قانجار كود الله قانجار لماذا لجو قرتنا صحابة أي شيئين إن أي رجود كفرين ينتمه هوسه أو قف كستو تمه هوسله لجو فلين يي حكم كاسدلك taasoo keentay in fuqahadu halkaas ka daliishadeen in saxaabadu cuskatay qariino iyo calaamado qofka ay ka muuqda oo sheegaya in uu qaangaar yahay walow aan la hubin in uu gaaray da'dii qaangaarka. taasina ay caddayn u tahay in go'aanka lagu dhisi karo qariino maadaama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuba ay ku go'aan gaarayeen. القولك لجوري عمر يقيب كمد صحابة وأها إن حكمان إن هواني دا أن لقبين جور هرسوا مرتي لو رج منكره هدي الأركو يدو أورله يجونا عسكري قرينة ظاهر كا موقتا أو أوركا أو عدين موقتا أو إن أي سنيستي ما دام وسنجرين من قبا أو أوركان ويري كرا وحنا إسلا أرنتان لقبه إمام مالك يوم تبكيسا إن إجماع أيسو جوريين فقهاء قاركوت سيدا ابن فرحون كتاب كيسا تفسيرة الحكام ابن قرطبي كتاب كيسا الجامع لأحكام القرآن جساس كتاب كيسا أحكام القرآن قيركوت با أي شيئين إن أي إجماع تهي إن وحلقو حكومي كرو لقونا قوان غاري كرو قادن كرو قريندا. إن آيات بقول تضباطا يسقالات سورة بقرة الله سبحانه وتعالى كشيغي إن كو عقلك أصاحبك قصاصت أتهي نولل. إن آيات أفرتن يشنات سورة المائدة والله سبحانه وتعالى كحسي إن الله جديي نفتي نفدشة إن لو دلو هذا محكمة يدو عسكتي سببها أي كور كحسي waxay ayday xukunkii maxkamadda gobolka ee laga soo saaray galka sumadiisu ahayd 147-2024 waxay ku heshay eedeysane Sayid Ali Macalin Daawud dambiga ku xusan qodobka 434 waxayna ku xukuntay dambiile Sayid Ali Macalin Daawud dil toogasho. xukunkan cid aan ku qancin waxa uga furan cabasho waafaqsan sharciga. xukunkan waxa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii shanaad 2024 waxa reeban in falcelin ay ka sameeyaan dadka holka ku sugan qof kasta xafadiisa ha aado fadhigii maxkamadana halkaas ayuu noogu xiran.